idin salaamaya dhamaantiin waa ku faraxsanahay intaanoo bulshadeeni iyo dadkeeni ah inaan halkaan ugu imaado oo qaraabadiya galabta waxaan halkaan u soo fadhiistay ma aqaano malaha madoobnimada nimankan farti la soo qaadaba leh waxa la guursado aniga arkay ma malaynayaa si waa inta waa iska kaftan hal waa ku faraxsanahay oo hadii intaanoo dad ahoo isugu timid magaalada Nairobi ku kulantay oo cidii ah waa wax lagu farxo haddana waxaa runtii waxaanoon le ah intaanoo qof ah boqolkiiba 85 ama 90 ka mid ah wax laga yaabaa inay ku dhasheen deegaankeenni oo ay ka soo barakaceen waa wax lunteeda xanuun la weeye waxyaalaha ugu muhiimsan oo aadamaha adduunka waxyaalaha ugu muhiimsan dadka ka mid ah meeshii dadka laga waayana manfaceedu waa yaraadaa marka intaanoo qof wax ka soo maqan yihiin deegaanka iyo meeshii ay ku dhasheen iyadana wax xanuun la weeye dadkeena inay noqdaan mid soo tagay oo soo maqan mid processki ku jiro oo raba inuu soo baxo iyo mid isla maxaa adiga kaliya halkaan ku dhigay marka iimaansiga laftiisa intii deegaanka joogta in la iimaansado wixii la haysta baa dadkii ka sii dhamaanaysa qof walba wuxuu isleeyahay meeshaad joogto waa lagugu dhaamaa oo socotaa ku jirta waxaan idin dardaarmayaa meel walba oo joogtaan isku xirnaashihii la idin dardaarmay waan ogahay inaad jeclaan lahaydeen in aan gabiyo marba haddaan meesha soo istaago ustaadku marka mar haddii la jeclaystay in uu waxaan iraahdo in la idin baaro oo abwaan wixii lagu aqoon jiray abwaan waxa la yiri aan gabiyin muxuu sheegayaa haddaadan gabiyin meega iska dhigo fadhiisa hoos ka yeeris marka waxaan marka idin dardaarmayaa meel walba aad joogtaan inaad iska warqabtaan waa mid xigtay qurban caastan ay maadeen meel dhib badan weeyaa adduunkina uu si kharaabaya oo uu si adkaanaya waxyaalaha dadka tayadooda hoos u dhigaya soo kordhay oo taleefanka uu kamid yahay mucjisaadku kamid yahay soo kordhay qofku waa busy wuxuu moodayaa inuu hawl hayo maanta tan taleefan buu saas leeyahay inuu hawl hayo la tahay xaqiiqaduna waxa weeye qofku marka wax hawl oo hayo ma jiraan marka dadkiina waxbarashada u yimid iyo dadkii inay cilmi kororsadaan u yimid marnaba komantiyada iyo like-yada iyo taleefanada la daawada iyo ma aha adduunka wax badan ku soo kordhinaya ma aha hadii marka adiga midka wax soo gudbinaya aadan ahayn wixii wanaagsan inaad ka daawato horeyna aad uga socoto isku day muddo cayiman aad geliso social media oo amal isagii uusan kula muuqanin taawa inta waa mid xigta ee tixda yarta ah ka sheekaynaysa sida wax isla qabadku uu nuxur u leeyahay dadkuna ay awood u leeyihiin aadamaha quraanjadu waad aragteeno buulasha iyo dudumaha iyo aboorku tixda yartaana waxay sheegaysaa sida awood ay dadku hadaad maqasho awoodaha adduunka ugu waaweynaayo soo maray NATO waa xulufo la yiraahdo Yurub baa ku kulansan bal ka waran hadii adduunkuna isku dayayo qaarad inuu immido annaguna laba aan u kala go'ayn on leenahay kaasi waxa weeye reer hebel weeye oo haddana faqradihii markii ay celin waayeen qodobadii aan u sii baxnayn nambaradii aan sii kala qaadayn marka ticdu waxay leedahay wareertay dadka lala wadaagay waxyi iyo aqoon culimada laga waraystay Allah loo wakiisha wixii adiga ka weyne hadduu webigu ka guro dixda laga qodaa weele waadiga biyaha yari dhan baa loo werweriyay weel daamis baa lagu dayaa gocasho waa yeele Allah waahid ee aadmi way isku heeshi xaalkii ummadaan iswaafaqin dhulkay degin ka weydaaye markaasay arlada waasica ah wahan ku joogtaaye waxay wadar u jiidaan rag waa daba walwaalaane waligii dad baa sii watay dhan ugu weynayde laguwaa markaan kugu wacay wada jirkeeniye laguwaa wakiiladu markay iga wareereene laguwaa markay wiiqatadu ila wareegeene laguwaa markii waab cidla alla igu weeraray labadeena waaxood midiba waayaha siday wadaday kugu imaatadu oon ku soo wadaye laguwaa markaan kugu wacay weheshigeeniye wadaama ku go'ay ceelashii maaxda soo waday wardi looga soo saari waa aan afcaal wadane laguwaa walaalow markaan wiilka soo diray haddaan weelka galo waxaan ka baqay inaad i weydaane qof i waardiyeeyaan rabaa wiishna ii luroe
laguwaa wareegtadu markay kuugu timid waaxe adiga walaalkay ahaa waalidkay dhalay amba kama walaaceen inaan kuu wanaag falaye laguwaa walaalow markuu wiishka ii go'aye adna waafi uma noolid iyo sida ninkii weyne anna warankibaa iiga mudan waaxyaha koraye laguwaa wasaasida markii la igu sii waday haddii aan walaalow ku iri aan war kala hayno oo heshigaagaan rabay ayaanan lagu waayin oo aan wadiiqada saxda ah weelasha u qaadno oo dadkeeni loo kala warramay dib u walaalayno oo aan wadiiqada saxda ah weelasha u qaadno waraabaha cunay iyo tukaha nagu wareegaya weeqnaashahay nagu arkeen weyda aan nahay haddii aan walaalow ku iri yaanan kala weecan wanaagaaga ruux jecel talaa lala wadaagay inaad ila walaacdaa miyay kula wacnaan weyday inaan iska warqabno baan idiin dardaarmayaa oo qof walbo qofka walaalka xaaladiisa aad og tahay waxaad arkaysaa laba qof oo guri isla degan